reer bani Israa'iil oo Ilaahay uu dhaqaale siiya jiray oo qani ahaa laakiin wuxuu ahaa musrif oo israafay ninkaas naftiisa uma fiicnayn ومعاصي بدنا والله نعميي أولاد با إلهي سيي أرزاقات با إلهي سيي عافمات با إلهي سيي مع ذلك هدنا وحوها من عاصي يبوها لكن صفة عجيبوا لها صفة دي سمعي دادك أيو لعكت أما هنجري مركا كي سوعي يحلق اللغو بلمين أو كقادنا يي كبلنت إي بيري قادنا بلنت أكرلين يي ككيني كري وين وسكعفنا يي maalintuu dhimanayay buu inamadiisa u yeedhu yiri aniga Ilaahay aaba waa nicmeeyay laakiin nicmada Ilaahay waan ku kufriyay waxaan Ilaahay la hortagayo iga horeeyo khayr aanu ma garanayo ma garanayo wax khayr oo iga horeeye aaba dadka sidaan ula tacaamulay buu yiri daymiya kadeenka soo celiya xilliga lagu ballamena ka qaata kadeenka soo celin kari waayana ka cafiya ka ballanta noo biiri yiraadana mawcidka u biiriya maalik uu dhintay ayaa ninkii Ilaahay la hor joojiyay Ilaahay baa soo saara ii kana adoonkaas markaas Ilaahay adoonkan u nicmeeyay matihi hawaanahay adoonkii baan hada timid maanto agteeda aad soo dhigatay waxba mujrim baan ahay ظالم baan ahay faasiq baan ahay musrif baan ahay mutrif baan ahay waan israaf markaas Ilaahay jalla wa ala ku yiri miyana lahayn adoonkaygi adoomahayga dayminayay sida ula tacaamulay maadahayn waanaha adoonkaygi miyana dahayn maalintuu soo dhimanay wiilashiisa kala dardaarmay yiri kadayga soo celiyana ka qaata ka mawcidka noo biiriyaadina mawcidka u biiriya ka soo celin kari waayeen iska cafiya adoonkii inamadiisa sida kula soo dardaarmay in adoomahayga ula tacaamulaan adigu ma tihid hawaanahay ana waan ku cafiya jannada qalba Ilaahay والعافين عن الناس والله يحب المحسنين